بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa xarunta xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo walaaleynta ee Samo ama waa xarunta dhexe waa xarunta dhexe ee xisbiga Samo مكتب المكرزل لحزب الإسلام لحزب السمو Central Office of Samo وحرونتا حزبك السمو إن شاء الله وحان إلهي يرادو كيف كلا دوان إذا كنتو سدونا إنتو وكاكوين يهي حرونتان جود حزبك السمو هدو إلهي يرادو إن شاء الله ورام سيدنا غاقينا هل كان وبرحدي markaad gudaha u gasho xarunta dhexe qaybtaas waa qaybta backing-ka xarunta dhexe ee xisbiga Samo oo lagu baakimo gawaarida madaxda iyo cid calaale idii la timaado xarunta dhexe xisbiga oo meel oo wiraan dhowr baabuur gaaraya ilaa 7 lagu xareen karo insha Allah xarunta saas u ballaaran yahay qaybo far badan ayuu leeyahay ganjeelkan ka soo galnayna waa kana sida tabeelaha kor ku xisnaa marka xarunta saas uu ballaaran yahay qaybo fara badan ayuu leeyahay insha Allah meesha ugu horeyso oo halkan markaad jaranjaradan aad soo korto qaybtan waa qaybta baarista waxa u qaabilsan guddi oo madax ah oo sida meesha warqadan ku qoran xafiiskan waxa la yiraahdaa xafiiska madaxa guddiga nabadgeliyada iyo protocol ee guddiga xisbiga Samo marka waa sidaas qaybtan markaad fiiriso waa hoolka shirarka ee xarunta magaciisa oo ku dhagan waa kana waxa ku qoran xarunta dhexe ee xisbiga conference room waa hoolka shirarka marka insha Allah baab uu leeyahay kan dhankaana waa laga soo gali karaa dhankaana waa laga soo gali karaa waa meeshaan ka soo bilawnay sida aad aragtaan marka hoolkii waaye waa kana waxa fadhiya haween ka tirsan mas'uul ka tirsan xisbiga Samo oo lagu magacaabo mudane Abdulqaadir magaciisa mudane noo sheeg magacaaga Abdulqaadir Awkar Ibrahim oo ku magac dheer Ujuuk waa gudoomiyaha guddiga arjiqawashada ee doorashada xogayaha guud ee xisbiga Samo wuxuuna fadhiyaa hoolka guud ee shirarka wuxuuna ku hayaa howlihiisa shaqo oo ku diyaarinayo qaabkii nidaamkii ee musharaxiinta isku soo diiwaan galiyeen ee codsiyadooda ay soo gudbiyeen insha Allah taasi waa qaybtaas waaye waxaana ku yaala qaab dhismeedkii xisbiga oo qeexaya dhammaan qaybaha kala duwan ee xisbiga insha Allah kan waa hoolkii hadda waxaan u dhaadhaceynaa qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay xarunta guud ee xisbiga insha Allah sida karatan xafiisyada uu ka kooban yahay waa intaas qololkaas waaye gudaha daasiga qolol kale ayaa ku sii jira qol kastana waxaa fadhiya mas'uuliyiintii meeshaas ugu magacaabnaa oo xafiisyadooda ku guda jira howlahooda shaqo insha Allah waxaan ka bilaabaynaa haduu Ilaahay yiraahdo xafiiskan sida aragtaan magaciisa waxaa la yiraahdaa xarunta dhexe ee xisbiga Samo xafiiska diiwaangelinta qof kasto oo ku soo biirayo xisbiga wuxuu soo marayaa xafiiskan oo sida meesha ku aragtaan waxaana fadhiyo madaxii diiwaangelinta oo shaqadiisa howl maalmeedkiisa ku guda jiro qof kasto oo soo booqdo xarunta dhexe ee xisbiga waxa uu la kulmayaa shaqaale u carbisan howlahooda shaqo iyo mas'uuliyiin si joogto ah u joogaan oo fuliya howlaha iyo barnaamijyada siyaasadeed ee xisbiga waxaana fadhiyo mas'uulkan oo howshiisa gudanaya mudane magacaaga
Abdulqaadir Cabdullaahi Xasan madaxa diiwaangelinta xisbiga Samo. madaxa diiwaangelinta xisbiga Samo. Waa sidaa uu sheegay mas-uulkaasi waa Suldaan Cabdulqaadir igu celi Suldaan Cabdulqaadir Cabdullaahi Xasan waa xafiiska diiwaangelinta howlihiisa diiwaangelinta ayuu ku jira liiskii oo mas'uuliintii oo la diiwaangelinayo ayuu faraha ku haya howlahaas ayuu maxaa la yiraahdaa dib u eegis ku sameynaya qof kasta oo la diiwaangeliyay oo guud ahaan oo ka mid ah xisbiga waxaa laga helayaa mas'uulkan halkan fadhiyo insha Allah computerkiisna waa sida u jeedaan howlihiisa ayuu ku guda jira xafiiska ayuu fadhiyaa halkaani waa xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga gaar ahaan xafiiska diiwaangelinta ee xisbiga Samo insha Allah waxaan u gudbeynaa qaybta kale oo xafiiska kale xafiiska hooyooyinka ama xafiiska haweenka insha Allah waxaana joogta mas'uul ka tirsan xafiiska oo maamula howlihii loo egmaday oo ah la shaqeynta iyo xirgelinta iyo abaabulka haweenka sidii maslaxadda u soo kori lahaayeen si ay kor loo qaado sharaftii iyo karaamada haweenka ee lahaayeen marka waxaa fariisa xogiyihii guud haweenka mudane magacaaga Cafiifka Sheekh Maxamed haye xogayaha haweenka aan ahay ahna xibin golaha dhexe ahna guddiga doorashooyinka ku meel gaarka Samo. ما شاء الله سيدا ايه شيكتي وعفيفة شيخ محمد يرو وايه وحقيها هوينكا احنا قدي كرترسن حبين كرترسن قولا حد حسبيغا اسلا مركاسن لو دورتي اني حبين كنوقتو دورشدا او غوردو لبقود دونو او بدل كحقيها قدي حسبيغا او لو دورتي ان شاء الله وحين قدي جرتا هول مالميد كيدا حفيز كيدا حارون هوينكا ku jirta insha Allah qaybtan sida hore inuu ku sheegay waa xafiiska haweenka insha Allah saas uu la socda haduu Ilaahay raado qaybtan kale ayaan gudbeynaa sida meeshan ku qoran waa xarunta xisbiga sinaanta amaanka iyo midnimo ololeynta xafiiskiisa oo dhameystiran qaybtan markaan idin sheegone waxay ka mid tahay xafiiska garabka dhalinyarada ama xafiiska dhalinyarada qaybtani sida meesha idinkaga muuqda waa xafiiska dhalinyarada eedana sidoo kale waxa ka socda hool oo u qaabilsan oo arimaha dhalinyarada sidii dhalinyarada karaankooda iyo sharaftooda kor loo qaado iyo xuquuqdooda insha Allah hool balaaran ayaan laga hayaa mas'uul ka tirsan xafiiska garabka dhalinyarada ayaa fadhiya asigana waa noo sheegi doonaa magaciisa iduu Ilaahay raado insha Allah mudane magacaaga Maxamed Nuur Ali Baba la yiraahdo jagadaadi xogayaha arimaha bulshada waaye ee xisbiga Samo oo howshiisa ku guda jiro haduu Ilaahay yiraahdo shaqadiisa waa nin hawlkar ah kana shaqeeya horumarinta dhalinyarada wuxuuna u qaabilsan yahay arimaha maxaa la yiraahdaa bulshada insha Allah xafiiska waa sida u aragtaan hool oo si joogto ah ayuu u qabtaa waana xafiis dhameystiran waa xaruntii guud ama waa xarunta dhexe ee xisbiga Samo insha Allah waxaan u gudbeynaa qaybta maamulka ama guddoonka xisbiga insha Allah qaybaha kala duwan xafiisyadan laba xafiis isku dhagan waaye sida ka aragtaan waa xafiiskii guddoonka waxaana fadhiya mas'uuliyiinta ugu sareysa ee xisbiga waxaa fadhiya mas'uuliyiinta ugu sareysa ee xisbiga ayagana oo howshooda oo maamuleed ku guda jira sida ka aragtaan xafiiska waa xafiiska laga maamulo dhammaan arimaha siyaasadda xisbiga oo leeyahay sida ka aragtaan mas'uuliyiintii xisbigana waa ay fadhiyaan waxaana kamid ah gudoomiyaha xisbiga mudane ogaas Aweesha Xuseen Honero iyo la taliyaha arimaha siyaasadda ogaas Xaaji Xuseen Maxamed Macalin ayaa meesha fadhiya asigana oo howshiisa ku guda jira ka tashtaan aayaha iyo mustaqbalka dalka sidii loo horumarin lahaa
sida idinkaga muuqda mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiga tabeelahoodana waa sidaas gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenka xogayihii guud insha Allah marka xafiiska waa sida mudane magacaaga ogaas xaaji xuseen maxamed macalin ogaas xaaji xuseen maxamed macalin waa la taliyaha arrimaha siyaasadda ee xisbiga samo insha Allah mudane ugaas aweed sheekh xuseen honeer gudoomiyaha xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimada ololeynta markii la soo gaabiyona samo okay waa kaas tani waa xaruntii xisbiga qeybaha kala duwan uu ka kooban yahay oo xafiiskii laga maamulay siyaasadda hooshooda ayagoo ku guda jiraan ayaa maanta lagu soo booqday si markaasaytii kormeer guud oo ummadda loo sheego in xafiiskii xisbiga samo ee xarunta dhexe ahaa oo magaalada muqdisho ka furan qaabku u shaqeeyo in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ogaadaan sawiradiisii iyo boorarkii la diyaariyay oo ka hadlayay iyo waqtiga la aas-aasay dhammaan meeshii ku yaala calankii Soomaaliyeed ayaa meesha ku dhegan dhammaan barnaamijyadaas waxay tusinaysaa maxay tahay maxaa meeshan ku qoran waxaa ku qoran magaca xisbiga siyaasadeed waxaa ku xusan xisbiga samo magaca xisbiga waxaa laga soo gaabiyay maxay tahay waxaa laga soo gaabiyay sinaanta ammaanka iyo midnimada ololeynta goobta lagu aas-aasay waa magaalada muqdisho taariikhda la aas-aasay waxaa meesha ku qoran 21 Oktoobar 2014 diyaarinta dastuurka xisbiga 30 November 2014 ayaa la diyaariyay taariikhda dhaqangalka xisbiga ama oo dhaqangalay 1 Janaayo 2015 ayaa dastuurkaas dhaqangalay xarunta weyn ee xisbiga caasimada muqdisho waaye tirada xubnaha golaha dhexe ee xisbiga waa meesha sida ku qoran waa 210 xubnood insha Allah guud ahaan meesha mabaadiida guud marka la isweydiina ujeedooyinka guud ee xisbiga sida meesha ku qoran boorkaas xisbiga samo waa xisbi siyaasadeed dimuqraadi ah oo u furan qof kasta oo Soomaali kana shaqeeya sinaanta ammaanka iyo midnimada ololeynta cadaaladda iyo sinaanta iyo cadaaladda ummadda Soomaaliyeed iyo sareynta sharciga sida meesha ku xusan ayaa ah habdhaqanka siyaasadeed ee xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimada ololeynta insha Allah halkan waxaan loogu dhantahay warbixinta kooban ee xarunta dhexe ee xisbiga samo insha Allah wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh